waxaa dhacday maalmaha kamid ah wasiirka arrimaha gudaha ee annagoo dhowr nin marti qaaday oo Puntland maxaa dhaman waxa laga hadlay marka hadii doorasho qabsoomi weydo one man one vote waqtigiina tagay oo hadda 3 sano 4 sano ay dawladda sii maray 3 sano maxaa qorshe ah wasiirku waa wasiirka arrimaha gudaha Puntland federalismka iyo dimuqraadiyadda maalinta wuxuu nagu yiri wasiirku annaga hadaan Puntland nahay siyaasadayadu farmaajo intuu meesha joogo inaanu wada shaqeyn la yeelano kuma jirto 2 sano iyo bar baanu joognaa 2 sano iyo barkaasna waxaanu ka shaqeynayn sidii farmaajo meesha uga bixi lahaa hada farmaajo teeran buu leeyahay waa madaxweyne dal dan baa nooga xiran mas'uuliyad beddelku qayb ku leeyahay wasaarad walba wasaarad bay xiriir la leedahay inagu local baynu nahay inta la diriireysaan ma la heshiisaano danihiinna ka fushataa hadda doorashada ina uga adkaataan rabtaan sidii doorashada ku qabsoomi lahayd ma kala shaqeysaan baan ku wuxuu yiri baarlamaanka Puntland ka tagay habraac waa loo sameeyaa cidaan habraaca ku imaana meeshan ka tagaysa xilligaas baydhaba dhuusamareebina ma jirin baydhabana ma jirin golahan wada tashi qaran ma jirin Puntland marka siyaasadeedu hore ugu sii jeexnay dadka qaar baa waxay yiraahdaan farmaajo iyo dawladdiisu Puntland waa nicib yihiin waa la dirireen waa keer haddaad ninka la dirir ninku waa kula diriraya waynu ogeyn dirirtu labada dhinacba waa ka jirtay laakiin qolada aanaysan kaba go'onayn inay marka hore la shaqeeyaan farmaajo tiimkiisa maadaama aysan ka go'onayna qoladaasina iyaguna casaanka u saareen sutiday u qabteen waxay Puntland diiday ciidamadii in la qarameeyo marka siciidan iimaanayay taliyaha ciidanka Puntland oo federaalku waa magacaawna in reer Puntland oo ahaa ma u shaqeyn waa laga joojiyay shaqadii uu isaga tagay ciidanka hadda matalan ka dhisan gobolada maamul goboleedyada kale waa ciidanka federaalka xataa Jubbaland ciidanka federaalka ka jira Hirshabeelle ka jira wuxuu ka jira Galmudug laakiin annaga siyaasad ahaan meesha maanta la joogo oo inaga iyo isfaham la'aanta iyo waliba cakiraanta siyaasadeed ee maanta Soomaaliya ka jirta Puntland qayb bay ka tahay siyaasadda xukuumadda Saciid Cabdullaahi Deeniyaana markii horeba ku dhisnayd farmaajo aan waqtigiisa dhamaysan meesha in laga saaro